بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت هذا السلام يا دلهانتي ملك استوى جوكتان سود واد أصحابي سود واد وقت كتشويجا هذه وعنا هذا وهي لو ديرة وكهولي مقالة مقدشو عبد العزيز لفت الجرين ما أنت واستغهولي مقالة مقدشو كدي مركي اسكو فهم وايين شركي ما أنت كدعي مقالة مقدشو حقيقة عبد العزيز لفت الجرين مرة على مركو بيدا بتجي أيوه حضلي وهو حوي رحت حمري جن كولتك رحت مكاسو تجي أنا نبض رحت مكا إمت بعد أيوه حضلي هذا شركي ما تدعي رنتي أول ربي إن حسبي وينا ما أنا أول بيابا حسب اللي يا الدولة ديوردان ما من قبل دي يا ترياشي عيد مضى قدوميه أغلق الصارع كي أغلق هوسة وحي دمايا هل حسب السوق كينا وهي براين وحان الله يروح سيكو سعون كرا وحان معقول ما هل حسبي انت هالمسكو إيمان كرت الدولة ديو كلا ما آداتك وكلا سياسة كلا عرقتي يا هل حسب السوق كينا يا أنا وشاكاس مركور أنا بقين لكن ما طلعوا كرتي ماشي عايز لفت الجري وحيول أنا شغلكم اللي وحان سجتي ماشي وكهو لي كدي مركي أو يروا إن أنهرا قدوميها حسبي دكتور شافعي آدم در loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ila bariskobiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo adeeg jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya wuxuu yiri marka haddaan gudoomiye xisbi aan heleen wixii lagu heshiiyay meesha la rabay in yaani wax isku dhoobo anigu kuma jiro yiri raali ahaada asxaabay kala tagnay mac salaamo Abdul Aziz iskaga baxay meesha iskaga tagay dadka qaar waxay ku faaleynayaan in uu qaaday wadadii Axmed Madoobe laakiin se wax meesha yaala ayaa waxay ahaayeen Shimbriyaalow heesa Shimbriyaalow heesa ayaa meesha tiila mooye xaqiiqatan dan Soomaaliyeed ma aysan oolin runtii inta la leeyahay xisbigan oo yaani lagu sheegay intaasoo yaani uu ka kooban yahay suurtagal noqon meeso dawladda iyo dhan iyo nooc walba oo wax walba in hal xisbiya loo sameeyay wax suuragal ma ahanba Abdul Aziz Gareem wuxuu yiri aniga kuma jiro xarfaanay hadii aan gudoomiyaha xisbiga aan leeysiinin aniga habarteeda ka tooyiri aan la iga lismaa أصغر دقائق قدوميها وحلو قرشينayay حمزة in laga dhigo xogayahana ninkii odayga ahay odawaa adraan odawaa xisbiga musharax madaxweynimada waxa loo rabaa Xasan Sheekh marka wuxuu yiri ruuxaas ani ma qaadan karo ariyada ani beel weyn aan ka soo jeedo digli milif liidaado haddaan laysiineen gudoomiyaha xisbiga dana qaadanayd ani kuma jiro inuu kala wada xarfaanay tag looga dheer marka waa iskaga howleena meesha hay ka howleen sidaas ayuu marka shirkii horta ku fashilmay waxaana inay fashil ay ku dhamaanayaan cid walba way sadaalisay cid walbaana way sheegtay meesha wax loo wada iyo sida yaani wax loo qaabeynaya markii la fiiriyay ayaa la ogaaday in waxaan fashil ay ku dambeyn doonaan xaqiiqatan marka Xasan Sheekh jilbaha ayuu dhulka ku dhufsaday qorshihii uu damacsanaay iyo wixii uu doonayay ma aysan noqon xaaladda oo waxa la yiri meeshan wax yaala ma lahan adeero nagu kala qaad ayaa la yiri sidaas ayuu marka ninkii lidaado Abdul Aziz lafta garan oo yaani iskaga tagay maanta Abdul Aziz wuxuu yiri marka baylaw markuu tagay oo yiri xamar jinni kula tag horta markaa soo tagay anoo nabad qaba yaa marka ayuu hadlay wuxuu yiri Abdul Aziz marka waa qoran yahay heshiiska waa saxiixnay wax hadda loo noqonayo maaha qof kastoo Soomaaliya haysto baarlamaanka haysto siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan haysto kii la taageeray buu ahaa kii lagu farxay buu ahaa waxaan rabnaa sida uu u qornaa in loo dhaqan geliyo oo loo fuliyo aanan gadaal loo noqonin waana caddahay waxa ku qornaa kana saan aha waa la sixi karaa laakiin waxay u baahan tahay in la ilaaliyo heshiiskii in la ilaaliyo nidaamkii dawliga ahaa in la ilaaliyo dawladnimadii heshiiskaas oo ahaa fulintiis Abdul Aziz warkiisu waa cad yahay wixii lagu ballamay haddana lagu dhaqmeeno yiri
aniga taftay ka banaanka ayuu yidhi sababta ah meesha marka waxaa ka cad marka in marka waxyaalo lagu ballamay oo lala ballamay ninka Cabdicasiis ah ballankina looga baxay haddii marka ballankii asaga looga baxay asna dee waa ka baxay wuxuu yidhi hawshaan aniga hawl aan ku jiri kara ama aan kaga sii mid ahaan kara sidaan wax ma aha ayuu taagan yahay Cabdicasiis Laftagareen marka shirkii maanta saas ayuu yacni ku kala daatay nikriya qorqor asna waa iskaga tagi doonaa magaalada Muqdisho كليب وحوي ماشي عن شمبريالو هيسا لوها يومركي هربا وحان إن السعودية عدل باوي قرني سوان لوتشي دي وعن لوكا دقاقي السلام عليكم ورحمة الله